daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Xogogaal. barnaamijka Xogogaal alaaba waxaynu ku soo qaadanaa barnaamijyada kala duwan sida barnaamijyada dhalinyarada ganacsiga iyo barnaamijyada arrimaha bulshada ku saabsan. waxaa marti ah Barwaaqo Xasan Faahiye oo mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood oo in badan ka wada sheekaysan doono. Barwaaqo horta ku soo dhawaad barnaamijka. waan dhawaay TV-ga Horyaal. waan dhawaay walaashay Xamda Cabdullaahi Qaran aad baan u dhawaay walaalo. Barwaaqo caawa TV-ga Horyaal shaashadiisa waa toos u fadhidaa. hadal badan ma karayna caawa. horta Barwaaqo mar labaad iyo mar koowaad waxaan leeyahay TV-ga Horyaal ku soo dhawaad. Barwaaqo waa gabadh dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. horena uga haatay magaalada Laascaanood xagga iyo wadamada loo tahriibo ama loo dhoofo. Barwaaqo haatan waxay soo aragtay wadamada dibadda iyo rafaadka ay leedahay tahriibtu iyadoo ka warbixinaysana waxay jiri aad baad mahadsantahay Xamda walaalo qaalisadii soo dhaweysay aad baad mahadsantahay tahriibtana wallahi way hawlo badan tahay. Barwaaqo maxaa kugu dhaliyay baad isleedahay inaad wadankaagii ka tahriibtid oo waliba hadda alxamdulillah wadankaagii aad soo hilowday oo aad ku soo noqotay Ilaahay inay soo kaanay sida ay sheegtay dhibaatooyin badan baad la soo kulantay. walaalo dhibaatooyin badan baa la soo kulantay. maxaa sababay baad oran kartaa ma dhalinyaranimo ay ahayd sababihii kugu dhaliyay? sababihii igu dhaliyay anigu horta markii walaalo tahriib ma jeedin gabadhan saaxiibnahay oo hadda dhimatay Allah naxariista jannada ka waraabiyo xafsa Umar iyo wali la yiraahdo baa igu tiri magaalada Boosaaso la yiraahdo Boosaaso in badan joogay kadib waxay igu tiri inaan walaal ay tahriibnay raac adigu isbuucii magaalada joogtay waa iska warwareejiyay markii dambana qatar bay noqotay oo dawaa raac wadankeed ka amba waqtigan waan ka amba baxnay kadib dawaan tahriibnayo baddaasaan galnayo wallahi waxyaalo badan oo dhibaato ah tahriibta kala kulanay. Barwaaqo dhibaatooyin badan baa horta adiga iyo dhalinyaradiisa ay sheegtay qayb ka mid ah way ku dhinteen. bal adiga oo maadaama ay dhibaato badan ku soo martay ma doonayno inaan caawa bulshadana ka qeyraysanno adigana waayo badan ku soo xasuusiyo yaro kooban naga soo. horta walaal Xamda habeenka meesha markaan ku jiray isma lahayn waa badbaadaysaa haddana alxamdulillah waa Ilaahay mahadii Ilaahay baa maanta iska leh wallahi meeshaas aad baan ugu dadna waa ku dhinteen dadna lugoodii way ku waayeen dadna maskaxdoodii way ku waayeen marka meel laga sheekay karayo ma waxyaabihii kula la yaabka badnaa markaad badda ku jirtay ama waxa ka mid ahaa wiil horteeda fadhiya oo yiri xabad baa igu dhacday kadib markaas wiilku waa uu dhintayba isagoo hurday ku dhacday isagoo hurdana way ka booday markuu soo sasay oo hadlay markii dambe waa ka booday nafta waa ka baxday. dhacdooyinka kuugu la yaabka badan bay dhacdada igu la yaabka badan bay ahayd. Barwaaqo sidaan ognahay wax ka soo gaaray dhibaato ama dhaawacyo sidee baad uga sheekayn kartaa baad isleedahay maadaama aan u baahanahay inaan dhalinyaradii dhibaatooyinka tahriibtu leedahay aynu ku hor istaajino adigana maasha Allah maanta aad caafimaad qabaad wadanka ku soo laabatay. alxamdulillah kolay dhibaatada tahriibta dhalinyarada looga joojin karo waalidkood baa ka joojin kara waayo waxay ugu joojin karaan markuu ilmihii waxbarasho soo dhameeyo uu dugsi sare iyo dugsi hoose iyo jaamacad intaba soo dhameeyo kadib waxay ku joojin karaan qofka inay shaqo ku mashquuliyaan marka ilmihii waxbarto waalidkii waxbaro jaamacad iyo iskool wax kasta ay bartaan hadhow dhahayaan orod anagu waxbaan ku barnay shaqatan ilmihii wuu neejabaya wuxuu ku kalifayay inuu tahriibo aan doonta ku jirnay doonta soconaysa laba cishaan badda ku jirnay horta laba cisho badda hadaan ku jirnay habeenkii saddexaad baa xabada la riday kadib wiil doonteeda saarnaa hadda uu dhintay Allah ya raxmar raximin baa wuxuu igu yiri waxaan ku wariyay ay tahay xabada dhacaysa siirna am araba meesha isku aroosisay kadib markuu saa igu yiri isaga baa xabada ku dhacday qofkii ugu horeeyay xabada ku dhacday wiil anigana marka xabada uu bilaabay wiil bay hayay wiilkay haysay inta ka jirta lugta kadib aniga igu dhacday oo labada lugood bay iga dhacday markii hore dadka indhaha isku qabsanay dadku way barooranayeen dadna waxay ilaahay dadkii intaba indhaha isku qabanayeen dad way barooranayeen la ilaaha illa Allah saarnaa Barwaaqo hadan ka dhax galo qiyaas intee leeg baad qiyaasisay qiyaas inta waxaan ku baxnay 154 qof
soddon iyo laba qofna waa dhinteen kuwana waxay ku dhaceen badda iyagoo waxba qabin ayaga waxba ma xabadii baa ku dhacday dadku way taagtaagnaayeen marka hore xabad markay ku dhac qofka ay ku dhacdana doontu ka duubaya ninkii doonta waday marka xabadaha la inagu bilaabay wuxuu inii sheegay oo dadkan su'aal u weydiisay habeenkii ma ninkii wuxuu nagu yiraahdaa sheekada ka dhex qala xamdi walaale ninka waxaan ku wariyaahay doonta meesha marasaan doonta jahada ka luntay hoosaasay nala timi Djibouti bay nala timi marba meel bay ku xidhanayeen kadibna habeenkii wuu soo kacay markay ahayd maqribkii ku wariyaahay meeshaad marasaan aduu ninku carabiga ku hadlay wuu qayliya anaguna carabiga ma garanay gabdho garanay baa joogay laakiin carabiga kadib waxaan ku nidhi maxaa dhacay siir meel khatar ah maranayo oo waxa lagu rusheeyay diyaaradaha baa waxay rusheeysaa dadka badda ku jira ay ku rusheeyay ayay wuxuu yiri ku rusheeysaa qiyaas ahaan wadankii bay ahayd waxa la dhahaa Mandar way yaqaan carabtu way yaqaanaan Mandar baa la dhahayo lagu rusheeyaa dadka waxa lagu rusheeyaa shiicada iyo waxa wadanka waxay ka mid tahay Liibiya oo waxay ka mid tahay carabta dhexdeeda wax yar noo jirta fidayda ay kadib markaan ku nir istaaji doontana wuxuu yiri ilaahay bari ilaahay bay badbaadi karaan oo idin badbaadi karo isagu de wax wuxuu wada ko tarbaana oo jaad iyo khamriyo waxa si wadi marka wuxuu yiri anu ma joojinayay socda markii nala xabadeeyay kadib isagoo dhaawacna wada wallaah oo labada lugood ka go'an markuu nawaday namagdeen ku xabadan ugu riday wali nabadeyn waxaan wali caruur yar baa nala socday xamdiye oo 6 jir iyo 5 jir walaal caruurtii yar baan korsaa ugu qaadnay oo waxaan tusnay tooshash iyo waxba hablu wifiyeen waa xabadii ugu dambeysay markay ugu dhacday aan koomaha galay waxaan ku soo baraarugay anoo dhakhtar ku jiro ayaan ku soo baraarugay aad baad mahadsantahay barwaaqo halkaad nagala socotaan oo TV-ga Horyaal 24 barwaaqo waxay ka sheekayn doontaa waayaheeda nololeed markay ka hayaan wadanka walaal aad baad mahadsantahay TV-gaaga dawaka يعني markii aad doontii ninkii isagoo lugi ka go'ay nagu waday yani idinkii waa la badbaadiyay anaga waana la badbaadiyay anu Soomaa ku jiray ma ogeyn dadka la badbaadiyay isagii lama badbaadin marka lugaha inta ilaa loogaas ka go'na xamdiye kadib markuu xudayda meel xudayda la yiraahdo carabta ka tirsan kan nafta ka dhacay isagii dhinta kale oo meesha la keenay waqti iyagoo dhaawac dadkii kale dadna baday ku daateen oo dhowr cisha la raadinayay laba isbuuc iyo waxa meedikoodii dadna meesha ku dhintay oo hilibkoodii iyo waxa la aruurinayay iyo dhaawacoodii kadib sidoo annagana naloo geeyay dhakhtar oo muddo 7 bilood aan ku jirnay dadkii caadiga ahaa ee badka qabayna waxa la geeyay jeel oo yani waa la xidhay macnaheedu markii hore meesha waxaan ku marnay tahriib ahaan baan ku marnay barwaaqay markaad adigu dhakhtarkii gashay markaan anu dhakhtarkii galay aan koomii ka soo baxay dhakhtarkan ku yiri maxaa dhacay may waxaan isku day horta inaan kaco siiri ma kici kartid saan ku maxaa dhacay siiri awood aad ku kicin malhi maxaa dhacay waxaad darantay waqtiga waxaan dareemay wallahi cid la'aan anaa waalidkii ka dheer anaa dadkii ka dheer anaa dalkii ka dheer oo meel dal shisheeya aan ku dhaawacmay oo ciisiya aan haysan iyo dad i caawisa waxa kugu noqotay murugo kale noqotay runtii kadib wuxuu igu duubay wax la yiraahdo kabay oo cad ilaa halkaa wuxuu igu yiri jismigaaga la dhisayaa jismigaagan baa burburay 3 bilood baa lagu dhisayaa 3 bilood dhiigayga la waayay sidii loo raadinayay mar dambe la helay dhiigayga mar dambe la helay waa la waayay sidii baa qalin la igu sameeyay biraa la yiri alxamdulillah waana wadanka hooyo hadar ka soo noqday barwaaqay markii aad naatay oo dhakhtarkii aad ka soo baxday inaad wadankaagii ku noqoto baada dalbaday mise waa waxay ana dalbaday inaan wadankayga hooyo ku noqdo waayo wixii daantay baanan helin daan jirin barwaaqay hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Nascaanood xarunta gobolka Soomaaliya waxa jira dhalinyaro badan oo hadda wadankooda aan aaminsanin oo wadankii ka hayaamaya iyagoo aqoontii wadankeena dacaaw Nascaanood baa ku maqraatiyo markii magaalada Nascaanood baan joognaa wada rafta quruxda iyo seen ugu caweynay maxaa la is oran karaa dhalinyaradan tahriibta ugu joojin karaa maadaama ay ugu waayay arag
waxa lagu joojin karaa in dhalinyarada loo sameeyo shaqo iyo waxyaalo fara badan ay ku mashquulaan يعني waxyaabaha ay ku mashquulayaan ma isleedahay tababaro wacyigelin ah intan u sameey insha Allah ku tala jirtaa wasleeyo barwaaqay hadii aan kula kaftamo waad tagtay wadankii waad ka tagtay waad ku soo noqotay gabadh yar oo aad qurux badan baad tahay wadankeedina wuu baahan yahay u bixi wadanka tahay ma isleedahay laas caanood intaad xaj yar iska heshay wixii boogahii hore iskaga ilow horta maxamdi markaan la saanood ma aad umruga badnaayo qalbigeyga aad buu u dilanaa hadda alxamdulillah qalbigeygu furaya dadka waa la kaftama waa ciyaara waa isleeyahay insha Allah calafka ilaahay boog barwaaqay taas kaftan bay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa TV-ga Horyaal xaruntiisa magaalada Laascaanood barnaamijkeena waan ku guda jirnaa barwaaqay nolosha maadaama aad soo noqotay magaaladii aad timi dad badan baa caaw markay ku daawadaan waxay oranayaan barwaaqo ilaahay waa noo soo celiyay magacaaguna wuxuu yahay barwaaqo gobolkii ama Laascaanoodna waa meel barwaaqo ma sha Allah wadaawo tanaaba inoo makhraati ayadoon cidiba aysan oran dhalinyarada dibadda tagtay ama markii gudubtay markaad la hadlayso jawsdee am xadareenta waxaad istiraahdaa yaa adigana ka dabageeya mise dhalinyarada waxaad leedahay maxaad fariino wada mar may isma leeyahay ka dabad waaya aniga Laascaanood baa ii dibada marka hore aqoon bay geysay taaniyo laakiin saadariyaga ii dibada Laascaanood mar aan Muqdisho joogay baa dhalinyaro hadda joogtay nidacaayo maxaa dhahaa ay dhalinyarada Libiya laga qaaday lageeyay dhinacaayo South Africa markay arkaan waxay dhahaan maxaad habeenka hadaan soo raaci lahay rafaadkana nala mari lahay alxamdulillah ilaahay waa naga ka reebay anigana doogmay jirin hadeer ina hadda dhow tigana iguma jirto dalsheeyo inaad wadanka Laascaanood bayga badan aad baad ma hadsantay barwaaqo nolosha qof wuxuu ku hamiyaa qofku xusnaha yani waxaad noqotaan ganacsade wuxuu isleeyahay wadanka deesaad sheegtay kama tegis ma qorshahaaga xiga dhalinyaranimo aad isleedahay samee waxaan sameyn lahaa ganacsatada noqon lahaa dan jeclaan lahaa inaan noqdo haddii ilaahay barwaaqay su'aalaheennii ayay weli inoo sii socdaa waxaad moodaa caaw maadaama dee xoogaa yaroo muruga aynu soo gallay dee qiirooyinkii iyo rafaadkii ilaahayna ma godo dhalinyaradana waxaan leenahay wadankeena aamina barwaaqo waad aragtaa dhibaatooyinka ka sheekaynayso iyo in badan iyo wixii soo maray waxaan leeyahay wadankeena aamina wadan haddii lagu yidhaahdo ama magaalo dalkeena ka mid magaaladeeba adduunka aad ku noolaan lahayd noloshaada barkeedana anigu horta magaalo badan waan soo arkay laakiin samee Laascaanoodka waxaan isleeyahay ku noolo inta noloshaada ka dhiman ma garanayo waxaad leedahay anigu Laascaanood anigu marka horena waan ku raanay Laascaanood nolosha ku qaaday nolosha ku qaato waa jecla aad baad oo waliba Laascaanood taasna waxa la oran karaa waxa keenaysa safarkii aad ka gashay waxa jira dad badan oo wali qiimaha wadaninimo aysan ku jirin iyo dad jeclaysa oo wali noloshoodii aan Laascaanood dhinacna u dhaafinama Soomaaliya oo maanta raba inay tagaan waxaan maanayaa fiidiyowgaaga markay wax badan ay noloshooda ka bedeli doonaan hadii la yiraahdo barwaaqana waa gabadh dhalinyaro ah ku faraxsan haatan inay ku noolaato magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool iyadoo waliba wadankeeda aan kala jeclahay barwaaqo dhibaatooyin badan baad soo martay dhibaatooyin badan baad soo martay oo waad ka soo sheekaysay barwaaqo markay tagaysay يعني كل واحد سلاي ودن قرب بدن أو دير يلا يود يوحلا بتجلسه صور كاس بحقوق الدنبي أتكهيستي أنكهيستي بحقوق الدنبي مقارنة وسعنا وسعنا ما وحلا سؤالن كنا ده مقالة Laascaanood بلندن لا مقالة Laascaanood بلندن ولا مية فربنا بالله سوي ما شاء الله هالكن أنا كسر أنا هالكن هو هاس شركة دائرة هاس مليان الأب نقول هذا أنا يبرواق هذا الكلام لا سمين وجودي وين ما تي هذا طيب تفرح هذا أيه هو بديشنا برواق المقالة دينا سنة دي هاي
waxyaabo badan baysan lahayn haatan waxaad moodaa inay kaabo qaaday ay isleedahay ay dhisantay maasha Allah aad ka xasuusataa ma isleedahay laascaanood tii hore iyo tan maxay ku kala duwan yihiin maasha Allah de wax fara badan bay ku kala duwan yihiin dadkii magaaladooda fahmeen oo dhisanayaan laamiye iyo adduun baa ka dhismay hoteelo lagama sheekay karo waaqi maadaama dhibaatooyin iyo wadamo qurux badan aad aragtay dhibaatooyinna ku soo mareen isleedahay magaalada laascaanood xilka qabo insha Allah ismalihi xaqa dawladda iyo xilka waan ka baqa ma jeceli aad baad ma safay laakiin wacyi geliye inaan noqdo dadka dhalinyarada taariikhda ka wacyi geliyo oo inta joogtay wacyi gelin ma samaysa dad fara badan ma anigu khaas ahaan ma sameeyno meel ma istaagin laakiin dhalinyaro fara badan baan aqaanaa maadaama anigu tahriibo oo jidkii galay dhalinyarada fara badan baan inna waa joojiyaa oo way maqlaan inna de waa kuwa la wato waa socdaan iska laakiin markaad uga sheekayso dhibaatooyinkii kuwa badan iska jooga dee lama tiri karo oo iska jooga jira qiirooda ilaba qiirooda ila waya oo iska badaaya iyo ku ay meesha Ilaahay calfu ku qoro iska taga oo wadankii ka ila kari waaye faaqo walaal dacaa waxaad moodaa inaad adiguna su'aalo la xiiqsan tahay ana waxa su'aalo lama xiiqsan inaan in badan ku arko aan ka hor fadhiistay in badan baa jeclaa oo waxaan isdahaa gabadha wax weydii alxamdulillah marka dhinaca jacaylka yani inaan jacaylka wax ka qoro mise inaan wax ka aqaano macnaheedu inaan jacaylka wax ka taqaanid inaad macnaha jacaylku leeyahay fara badan yahay noocyo badan inuu adigu hayo saasha ma iga bedesho waayo dadka ana su'aalo weydiin jiray in badan bala soo koox aad la soo saasha tifiyada iyo meelaha sankaarka inuu xamd qarantaa arma inta hor fadhiisatay su'aasha kaliya weydiisa aad soo weydiisay sanado badan baa su'aasha iga bedel هذا سؤال خلاص ما دام dadku ay wada musharaxiin yihiin aan oran karaynin jacayl ka sajir haye waga beddelaya iga bedel ma fiisiga aan nolosha qaleedahay macna maxay tahay aragtid hankaaga intuu leer u gaaro dadka gabadh dhalinyaro oo qurux badan baatay ma sha Allah aad baa ma santahay taxayiintii barwaaqo in badan baan jeclahay inaan wareysi kula yeesho aad yaad waxaan maraysaa laascaanood meelo badan baynu isku arag inaan mar kursi ku soo dhigto marna kula murugoodo marna kula farxo barwaaqo wax moodana nasiib isku yeelanay su'aashaada ee hiigsi horta qof kastoo dhalinyaro ah hiigsi uu leeyahay hiigsi labadaba uu leeyahay waxaan jeclahay nolosha meesha ugu sarreysa inaan ka gaaro haddii ilaahay caafimaad إن شاء الله إذا ماشي بسرعة ورك سؤال اللي بيجي كاميرا أنت ساوي سوى أصفر إشتا تذكر أنا جا ميكروفون كودي بشري هذا لو رجري ورتبرق يبوق الديوان كان تاكل قلبي أروين بدن بمكوسي وكل حي أنا حمل شغل عندي نها كذا شو أنت تيجي أمريكا يكوجي يا أمريكا يجي من بشري هذا الفيديو هذا الكلام لسه بوح يسوي عيل قصفها هذا الكلام لسه بوح لسه كف يتكاس كان براقي هذا ما حصلت أنا هذا علينا يا أنا يبغى ريال تيفي سيدا ونحسن البرنامج كان أكسبي يجي الموسوعة جبتي أدبك هذا ما هذا علينا يا أدبك داود ريال أنت واحد موسوعة كمرينا برنامج كني حبدا أنت دبعض والبوك سوق هذا النوع سيدا من يرضى يصير كل الجناح سيدا يو أريناها بوشدا برنامج كوا حين سعودين سياني جوا حمد عبد الله حمد قرن sidoo kale waxa qayb ka ahayd barwaaqo xasan faahiye oo kamid ah dhalinyarada gobolka Sool intii barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh